politics, academic institutions, as well as economic development. Somali Agriculture Technical Group, better known as SAGE, has taken a different approach by committing to the re-establishment of an agriculturally sustainable Somalia through rigorous testing and dissemination of technologies. SAGE runs rigorous testing prior to the dissemination of technologies. Over the years, SAGE has introduced many different crop varieties, including dwarf papaya varieties, early maturing cowpea and mung bean varieties. Also the testing of various forage species such as Sudan grass, alfalfa, Rhodes, Napier, and Dolichos grass. These forage species have all sparked much interest amongst local and commercial farmers. However, before introducing these new varieties, SAGE conducts soil analysis to determine the nutrient levels of soils in major areas of Somalia, and thus has confirmed deficiencies in phosphorus and nitrogen. To compensate for these shortages, SAGE applies its technical expertise to calculate the proper rate of application of DAP and urea fertilizers. Apart from soil analysis, other forms of technology testing SAGE has introduced are drip irrigation, manure composting and rates of application, soil steaming, and also the testing of natural pesticides readily available in Somalia, such as neem oil. And finally, for SAGE, good agricultural practices have always played an important role in the dissemination of technologies. Soomaaliya waa wadan qani ah, macnaa wax soo saarka waa la kordhin karaa. Wabiya ayaa leenahay oo macnaa biyo joogta ah laga heli kara. Ciid fiican ayaa jiro. Qoraxda waa joogto sanadka oo dhan. Degeedna waxa waaye koritaankiisi wuxuu u baahan yahay qorax, biyo iyo nafaqo si fiican loo nafaqeeyo. Intaas waa haysanaa. Marka sabab oo Soomaaliya ay maanta gaajo iyo macluul beerleyda iyo dadkii inay ugu jiraan ma taala meesha. We have certain crops that are already being exported, such as banana, sesame, lemon, dry lemon. These are already crops that have found their way into the markets in, particularly in the Arabian countries. And recently we had companies from Iran, from Turkey, opening the banana to those markets. And we hope that in the coming 2 years, the face of the agriculture in Somalia will definitely change. Somalia hadda ay bilaabantay calaamado ka mid ahay waxay sameeyeen mashaariic dib loogu dhisaayo diigooyinkii kanaaladii waraabka noo ahaa caratuurkii lagaga hortagay fatahaadda warshadii sonkorta oo jawhar la soo celiyo. Waxa kale oo ku jirta in warshadii mareerey la soo celiyo iyo faanoole diigadii faanoole oo korontadana dhalin jirtay, dhulkana bariiskana waraabin jirtay, in iyadana la soo celiyo. in gabdhihii ay raggi ka horeeyaan oo aqoon yeesheen jaamacadaha beeraha ka soo baxeen oo tijaabooyin sameeyeen oo wax soo saarkii dalka isu taageen miyay bannaanka kala yimideen, dhulkiina waa haystaan. Marka waxaan rajaynaynaa mustaqbalka soo socda waddanka Soomaaliya wax la isku halay kara inay ka soo bixi doonaan xagga beeraha ka xoolaha iyo beeraha. Annagoo rabno inaan young generation yaryar oo aan soo saarno oo improvement fara badan inay ka geystaan dhulka ka geystaan.
walaalahayna oo nisoo booqadeen maanta aad iyo aad in mahadsanyiin booqashada maanta isoo booqadeen aad iyo aad ananka faraxsana anigoo ah Faadumo Nuur Usmaan oo ka socda tuulada Balbaley saad markii oo tacabkan aynin bilaawaasi hal jiwaal ayna siisi halka jiwaal gacmooga aynan ka soolani kuwaaba ana qaadani maahina makiina malinka soo bine halka jiwaal markiin tacbani wixii ninka soo bihi iyo walaan hori halaan isdiideen markaan ku horooyta markiin oo hal hektar tacabno aan 5 juuni 6 juuni hala jirni oo sabuul marka halka jiwaal oo saatnin tacabti oo shidaa oo leeys oo kunshiimadani caawinaadi oo ina siisi oo tacabkiin lani bari markiin tacbadi halka jiwaal wal 7 loor sabuul in soo bati halka jiwaal kali shay haddana waxaan ka soo dhawaayay walaashay samsam waatana mar alla markii tacabka aragti oo idhati in kooyti walaashay waata tacabkan aragay anina ma ii gacan qabato markii saas idhati ijaabshay iska maalgelisi waaye tuulo oo jaran la dhaaway ka kooyti tuuladii markii ka kooyti walaashay raaci tacabkii aan soo qabadi kunshiimadii aan soo fardhii galeeyti aan abuuri hadda aan foodo way hayte in tacabkii la maxdi ilaahay qof kale aan soo dalbado gali aad mahadsantiin haddana wiisnin qabatan iyo wala ka wiin asiin ka sugu haynayna siin qabatan camal ah oo haga jiheeya aqoontii iyo materialkii wixii loogu talagalay siiya farmerka laftirkiisa oo ah midka beneficiary-ka ah isagana ugu lagama harin waxa la galay heshiis la yiraahdo memorandum of understanding saajna waxay bixinayso asagana wixii laga rabo sida in dhul laga rabo waraabkiisa inuu og yahay dhulkiisa galeed inuu waardiyeynayo waxyaabaha safar abuurka dhulka aan ku bilaabay fujiska ka soo bilaaw ilaa dhulka soolidiisa ilaa abuurkiisa ilaa waraabkiisa ilaa ma aragti oo galeeda ka bislaato waa saacado miswayni ilaa galeeda markay bislaato shaftaashi fiiqidi maxay yaraan u si badarkii qaadidiisii guriga la soo ordaay ciyaalka mana kala harin ilaa dadkii waxaa NGO ma aragti wadankii ma aragti beeraha waa falaya beerta markay ku falaan injigayda sidoo ay kaaga tagayaan wax oo mar dambe kugu soo naqanaayo male oo beenat saad waxay dheertahay beertii ay falay bacrimina ay ku siinay kunshiim ay ku siinay daab ay ku siinay dhurshu ay ku siinay buufis ay ku siinay makka harayso فاهمينه انت ولا ايماني عقفال نوجيده ما شغال naga tagay macnaha oo hadda oo daawada oo balka u tareysana ma fahansaneen hadda Agricultural development, SARS mobilizes and consults with community leaders and elders, discussing with them various agricultural opportunities they would like to introduce in the region, thus initiating this bond of respect and transparency. Demonstration plots are also a key to SARG's success. Here, local lead farmers willingly lend a portion of their farmland to SARG while continuing to farm using their traditional methods. The results then show clear and tangible comparisons, confirming how much more yield SARG manages to harvest using modern methods versus the farmer's traditional approach. The results are mind-blowing to the farmer, and in no time they have full conviction with SARG. apart yani markii laga saaro international organizationska waxaa kaloo si toos ah wada shaqeynaa hay'adaha maxalliga ah sida jaamacadda Banaadir oo kale jaamacadda Camuud oo kale iyo macnaa NGO-yada Soomaaliya ka howlgala agro dealerska business community-ga waxa waaye inay noqdaan wax isku xiran macnaa tijaabo iyo farsamo la tijaabinayo kaliya wax ma anfacayso farsamadii haddii la tijaabiyo la arko in ay noqon karto wax laga macaasha waa inay jiraan dadkii businesska community-ga ahaa ama agri dealerska ahaa ama seed producerska ahaa ama farm machinery-ga ku shaqo lahaa inay ayagana socodsiiyaan in waxaa kateenadaas inay isku xiranto ayaa loo baahan yahay sidii horumar dhaqaale oo waddanka loogu gaari lahaa oo loogu bixi lahaa abaarooyinkan
oo loogu bixi lahaa mataqaanaa dhibaatooyinka maanta beeraleyda haysta. il waxay aragtaa la dhahay ilaalma ka dhan waxaan rabnaa micnaha ama aan codsanaynaa ama sad aan ka codsanaynaa in micnaha ay tababarkii micnaha noo kordhiso. waxaan arki jirin ayayna tuseen tacab oon weligaana arkin oon aabbahayna tusin hooyadayna tusin abkoogayna tusin ayayna tuseen. wixii anaga ektar aan ka heli jirnay juweelku inaan ka helnay ayaan idin sheegaynaa. waxaan shalay arki jirin amba haysan jirin ayaa maanta isoo dirseen. ilaahay xaggiisayna ka timid saad xaggeedayna ka timid. marka juwaalii waa ka guulaysanay sidii oo ektarkii wax ka bixi jiray iyo haddeer wax naaga baxo wax isku dow ma ah. daadya diidimid dabuulka waa kana halhallaa loo reeboohaya tacab unika kanteynin ayayna tusti. waa la wadaa hawsha wax joogsanayna ma aha inaan sii badinimaan wax uu gadaal agana qamaynana insha allah ma aha. marka weliba waxaan ka sii jeclaan lahayn talaabta hadda meeshay taagan tahay in yacni dhanaal sii dhaqaajiyo hore loo sii dhaqaajiyo. anigana waxaan rabaa wixii aniga aan dhalay cumrigaasaan jiraa inaan tacabkaas hadda ka dambe inaan tuso seed i tusto. abuur baa loo dhiibay beer baa lana siiyey abuur samaysan waan wada abuurnay waanoo soo baxay maasha allahu kaana hadduu anoo taas abuurkii. waxaan rabaa wixii gadaashayna jiro taaj inay gacanta ka qabato jabbaluul dhan gacanta ay ka qabato. waxaan aad iyo aad aan u hamiyey inaan hay-adda saad waxyaabaha ay u qabahayso ummadda oo ah sida beeraha kaale arag beerihii oo dhalkooda ahaay halkii jibaal meeshii 3 loor 4 loor ka dhalaysay ektarkii ayaa jibaalkii ka dhalay 3 loor ii bar laana dad wax soo bartay oo ummadii wax u qabahay ayaa noo yimid anagana inaan ka faa'iideysto madaxeeda ayaan ugu tagay hay'adda aan macnaha u weydiistay in anigana wax ii qabtaan. Bye.